haweenku waa lafdhabarta bulshada inkastoo waayadii hore ay haweenku ku koobnaayeen shaqa maalmeedka guriga iyo tan qoyska wiilashana loo diri jiray goobaha waxbarashada iyo shaqada hadda taasi meesha waa ay ka baxday haweenkuna waa kuwa waxbartay ilaa heer jaamacadeed shaqo kasta oo ay raggu qabtaanna waa kuwa hadda qaban kara inkastoo fursadaha shaqo ee waddanka yaalla ay kooban yihiin dhalintuna ay ka cabato shaqalaan haddana taasi ma aanay joojinin habboon iyo nuura tani waa shaqo ay dhif iyo naadir tahay inaad ku aragto dumarka waxaanay gaar u ahaan jirtay ragga haddase habboon iyo nuura waxa ay ka mid yihiin adeegayaasha kaalintani shidaal ee haas batroliyam waxaanay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay ku shubaan shidaalka iyagoona siiya adeegyo kale oo dheeraada telefishanka RTN ayaa habboon iyo nuura waxaanu kula kulannay iyagoo hawl maalmeedkooda shaqo wata kuna sugan goobta ay ka shaqeeyaan waxaanan ugu horrayn weydiiyey sida ay habboon iyo nuura ay u arkaan shaqadan hadda ka hor ragga gaarka u ahaan jirtay ee hadda iyagu ay qabanayaan maadaama shaqadan hore dumarka lagu arag inay ka shaqeeyaan ma jirtaa habboon iyo nuura caqabada ay kala kulmeen dadka ay u adeegayaan inta ay ku jireen shaqadani waad ku mahadsantihiin booqashada aadna soo booqateen maanta anagoo ka shaqeynayna kaalinteedii ama haasanagoo ka shaqeynayna waa ku mahadsantihiin booqashadiina haddaan u gudagalo su-aashaad kale i weydiisay wallaahi shaqadan horta maasha allah aad baan ugu faraxsannahay yacni ka shaqaynta halkan aan ka shaqaynayo kule waa casrigii hore looma arkin marka maasha allah aad iyo aad ayay u fiican tahay shaqadani aad baan shucuur badan farxad badan ayaan dareemayaa in aan ka mid noqdo shaqaalaha haas ka mid noqdo ama serviceka aan ka mid noqdo aad baan ugu faraxsanahay shaqalaan badan oo waddanka ka jirtayna way soo afjaraysaa way kulleena maanta hormuudkii baanu nahay laakiin waxaan rajaynayaa hablo badan oo nala mid ah in ay maanta ka bixi doonaan shaqo la'aantii iyo caqabadihii horyaalay taasoo ah in aadna loo soo dhaweeyey soo dhaweyn aan xataa weligay ku riyo hadday tahay dadkan la shaqaynayno hadday tahay maamulka hadday tahay cid kastoo dee meesha ku jirto joogto aan wada joogno alxamdulilah farxad badan baana lagu soo dhaweeyey maasha allah horta wala waa runta oo rag baa lagu yaqaanay shaqadan balse laakiin annagu markaanu bilownan hormuudkii noqonnay runtii falcelinta dadka bulshada marka aad eegto aad baana loo soo dhaweeyey yacni waxna diida ama idhaha kuma habboonidin maanan arkin weli laakiin bulshada qaabay noo hayaan taasuna sii dhiirigelisay oo farxad badanna sii dareensiisay kuna dhalisay inaan in badan ka shaqayno halkan oo xataa annagayga hamigayga kor u sii kacay alxamdulilah كل إحنا قنصة أتفرج التايم أي دمر كشقيان أوشان بمكة والله الحمد لله وحن من سنة هنا دمر كوح والبع أي قبان كريان والله مستلي ضد كويان كوف فكرة ضد معها مستلي وين سود وين ضد إلى هذا محل هذا أي وحيان هذا وين أحسنت هين دمر أي قبتان هوشان لكن سي مستلي ضد كون سود وين وفوف يرى إلى هذا لكن سوار أوشان وهول هذا دمر إسكداية بدأ لقد دمر كانوا يشرا لكن مستلي dadku way soo dhaweeyeen si waxaan weeganan soo galnay hawsha alxamdulillah horta wax caqabada oo aan aragnay intaan ku jirno wixii soo socday ma sheegin qadarka rabbi laakiin intaan ku jirnay alxamdulillah wallahi hawl adag oo aan aragnay jirto shirkadana aan shaqaynayna aad baa u soo dhaweysay geesa kale cali yuusuf qodax madaxa kaalmaha ee shirkadda haas ee ay ka shaqeeyaan habboon iyo nuura ayaa ka warramay qaabka ay shirkadahan ugu dhiiradeen inay shaqadan u diraan hablo waxa weeye waa qayb ka mid ah shaqo abuurka dhalinyarada marka ay soo qalinjibiyaan dhalinyaro fara badan hablo iyo wiilal jaamacadaha ay ka soo qalinjibiyaan shaqooyinkii iska yaraadeen waxa ugu muhiimsan in laga qayb geliyo hablaha iyo wiilasha shaqooyinka ay qaban karaan marka shaqadani waa shaqo maxay ahayd ay hablo qaban karaan marka ay eegto wadamada adduunyada oo dhan marka bamka in la shidaal la shubo waa qayb ka mid ah maxay ahayd servicekii customerkii kor loo qaadayo waa magaranaysa adeegkii hufnaayo la sii horumarinayo waa magaranaysa maxay ahayd shaqo abuurkii dhalinyaradii oo laga qayb qaadanayo qofka maanta shaqada bilaabay inteen ku bilaabay ama
meelahaas ka bilaabay waxa la doonayaa mustaqbalka inuu kamariga qayb weyn ka qaato oo managerskiisa ku noqdo oo magaranaysa kor u socdo waxaan rajaynaynaa in tababar noqoto mustaqbalkana ay magaranaysa ka qayb qaadato in qofku uu dhismo waxaan lagu kalifay marka ay kulanka guud aan isugu nimaadno shirkadaha shaqaalo gudaha kulanada gudaha waaweyn inay habluhu yar yihiin adarka 3 hablood oo 100 wiil garaf dhex fadhiya marka saasaan isleeyahay waxay ahayd aad ku soo gelisaan dijitaalka iyo guud ahaanba shaqooyinka uu kamariga qabanayo wadamada uu kamariga ka shaqeeyo guud ahaan oo dhowr wadan waxa u badan dumar shaqooyinka ay qabanayaan marka taasina waxa weeye wax dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba wax dhiba laguma keenayo anaguna waxaan ilaalinayno oo sumcadeeda iyo sharafteeda iyo maxay value-ga ama qiimka dadka aan ka qayb qaadanayno inaan ilaalino Habboon iyo Nuura ugu dambeyntii waxa ay fariin u direen hablaha dhigooda si ay ugu dhiiradaan fursadaha shaqo ee wadanka yaala. Fariintan uga diray waxay tahay in ay wadankeena si horumariyo isbedelayo shaqo la'aantina ay soo afjarmayso maalin dhow insha Allah. Aan leeyahayna in la iska daayo waxyaabaha kale lagu mashquulsan ama maala yacniga oo qofku xoogiisa waxa kula soo baxo shaqo xalaal ah oo ka shaqeynaya anaguna soo biiraanaguna diiwaan soo dhaweynaya waxyaabo ka shaqooyin kale ba jirta imika kullee wali la bilaabin dumar inay fursad ka faa'iideystaan oo aanay sunan wax walba ragga loo daayo waxaan leeyahay dumarku mustaqbal waxa la yiraahdaa amba yacni hawlaha ragga badankooda ma qabtaan laakiin waxaan leeyahay wax walba uu dhow ma sameyn karnaa gacmo furan ku soo dhaweynaa hablaha kalena insha Allah waxaan leenahay halkan iyo meel ka saraba waan ka rajaynaynaa kale diyaarna waan duulinayna marka inaan meel ka sareeyana insha Allah gaadno majority raggu hadana ha qabtaan inaan laga maarmin ragga loo gay laakiin in wax walba ay qaban karaan raggu ay isku dayno Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa